Asalaamu calaykum waraxmatullah. Maanta waxaan ka hadli doonaa wadanka Malaysia ama macluumaad ku saabsan wadanka Malaysia. Sida caadigeed aan ku bilowno macluumaad guud oo ku saabsan wadanka Malaysia. Malaysia waa wadan ku yaala koonfur bari ee qaaradda Aasiya. Malaysia waxay xuduud la leedahay wadamada kale ah Philippines, Thailand, Brunei, Singapore iyo Indonesia. Malaysia dadka ku nool waxay gaarayaan ilaa 282 milyan oo qof. Malaysia waxaa dego 3 qowmiyadood oo kala ah Malaya oo ah dadka u dhashay wadanka, Hindi iyo Shiinees. Caasimadda wadanka waa Kuala Lumpur. Wadanka Malaysia waxa uu leeyahay ama uu soo yeeshay magacyo fara badan inta aan loo bixin magacan haddaytan ee Malaysia. Markiisa hore waxaa la dhihi jiray jasiiradda Malaysia. Haddana waxaa loo bedelay wadanka Malaya. 1946 markuu wadanka midoobay waxaa loo bixiyay midowga maleeshiyaadka. Kadibna waxaa loo bedelay federaalka Malaya. 1957 markay xornimada qaateen waxay la midoobeen wadanka Singapore. Isla markaasna waxaa loo bixiyay magaca haddaytan loo yaqaan oo ah Malaysia. Bedka guud ee Malaysia waa 330,803 kiiloomitir oo square ah. Waana wadanka 66aad ee ugu bedka weyn caalamka oo dhan. Luqadda looga hadlo waa Malaya. Lacagta laga isticmaalo Malaysia xilligan waa Ringgit Malaysia oo loo soo gaabiyo RM. Xilligan 17% dhulka Malaysia waa kaymo ama waa meel oo duur ah. Taariikh ahaan Malaysia waxay leedahay taariikh aad u dheer. Waxay jiri jirtay in ka badan 40,000 oo sano ka hor. Waxaa wadanka soo gumaystay gumaystihii Ingiriiska laga soo bilaabo sanadkii 1786 ilaa 1963. Ingiriiska waxa uu maamuli jiray ama uu gumaysan jiray qowmiyadda Islaamka ee loo yaqaan Malaya. Macluumaad kooban oo ku saabsan wadanka Malaysia. Malaysia waa wadanka kaliya ee ka adkaaday gumaystihii haystay ee Ingiriiska ahaa. Hoteelka ugu weyn caalamka xilligan waxa uu ku yaalaa wadanka Malaysia. Waxa uu leeyahay 7,351 qol ayuuna ka kooban yahay. Malaysia marka uu cunug reer u dhasho waxaa loo bixiyay magac ku meel gaar ah. Yacni cunugu markii hadda la dhalo magac hore loogama bixinayo. Waalidka waxaa la siinayaa jaanis ay ku soo fikiraan. Markay jaaniska ay keenaan oo ay magac fiican u bixiyaan, magacii hore ku meel gaarka waa laga bedelayaa. Waa arrin la yaab leh. Bayloodka ugu da'yar caalamka xilligan waa Malaysian. Waxa uu jiraa kaliya 21 sano. Malaysia waxay ku yaalo saro loo yaqaano Twin Towers ama saro mataana ah. Shakhsiyaad caan ah. Marba haddii aad Malaysia ka hadlayso waxaa la muraana inaad ka hadasho Mahathir Mohamad oo ah ninkii Malaysia dhooqada ka saaray heer sarena gaarsiiyay. Waxa uuna wadanka ka soo noqday ra'iisul wasaare. Dhanka waxbarashada. Yacni Soomaalideena dhalinyaradeen waxay u badan yihiin waxay jecel yihiin inay wadan kale wax ku soo bartaan. Marka waxaa muhiim ah Malaysia waxay ka mid tahay wadamada badan Soomaalida ay aado. Rag badan oo aniga aan aqaan xataa wax ku barto. Marka dhanka waxbarashada haddii loo jeesto Malaysia waxay leedahay waxbarasho tayo leh iyo jaamacado aqoonsi guud ah wata mas aqoonsi caalami ah. Yacni marka jaamacad wax ka baranayso waxyaabaha ugu muhiimsan laga qiimeeyo waxay tahay in jaamacadan la aqoonsan yahay. Yacni markaad shahaado ka qaadato ay tahay jaamacad magac leh. Sidoo kale markii aad wadan aadaysid waxaa la muraana raqiisnimada nolosha. Yacni wadanka markaad ku noolaanaysid cunooyinkiisa waxyaabaha la midka ah. Marka Malaysia waa wadan dhankaasna raqiiska yacni. Sidoo kale Malaysia waxay leedahay fursado shaqo oo part time ardayda gelinka hore inay shaqaystaan, gelinka dambena ay wax bartaan ama gelinka dambe hore uu inuu shaqaysto ama gelinka dambe uu wax barto. Yacni gelinka uu heli karo. Waxaan u maleynayaa inaad wax badan ka faa'iidi doonto.